gabadhu markaa kelmad bay oranaysaa kelmadan xoogii dareen gelisay wata haddaan anigu macnaa cilada moodeen aniga tahay guurkan ma galay maan guursaday intu waa ardayad dhaqaale meel ka soo gala ma haysato waa qofka haddee waxbarashada ku mashquulsan qisadaa kuu dhamaynaya inankii inantii xaaladoodu iska warhayeen xilli walba waa la isla jaan qaadi jiray galab galbaha ka mid a oo wax dhacday inantii wuxuu ku yidhi garoon baa tegayaa haye ba isku ogaayeen teleefonkii haaftankii dee ciyaartu marka dhacdo way soo wici jiray way weyday waqtiyadii ay u baratay oo dhan bay weyday jacaylku inanta xididada wuu dhaafo dhiigga waa waraabinaya waxa u dawaa waa aragtidaa hore. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يال ملك استودعونا كشوكتان رمضان كريم كسر دعوة يوتيوب كيجا أنتي هرنا لو شوكتي أدي أدبدم هالسنتين أصحابتك لا عصبة نقص بير سنة وحلينا يسوي دعوة هل كان واحد كلا سعون دونتان برنامج أدي اللي قلدونه كلا دوين أو قيبة كلا دوين سكوتشر عاو هل كان وحيلة شوكا صحف قلنا لا أقويها قلنا لا أبوان قلنا لا نينا نسكو بهناي محمد قالنا walaalkii aad baan ku soo dhaweynaya waxaan ku faraxsanahay caawinaad qayb ka tahay programada halkan asxaabteedu ka daawada aad iyo aad baad mahadsan tahay walaashay Faadimo Ismaaciil Muuse Faadimo Riyaad aad baa kuugu mahad celinayaa bariyaha de waraysiyadii waxa ka baqay jiray moogta aad iyo deetana waxay noqotay inaan bixiyo waxaad noqonaysaa inantiisa afraad ee maraan tani inta waraysiyada soo babaxay aasiinay waraysi afaradad bixisay maxaa ku gaadhay waxay hadhay waxaan isla hadee horta inamada waraysiyadooda waxaan u yara diidanaa habluhu say hadalka kaaga gurayaan hayada ku goorad laxmada xataa goorad samaysay ma ogaanay goorada farteeray isku hagaajisay ogaanmis aad marka waa ku mahad celinayaa waxa kale oo kugu bogaadinayaa dadaalka iyo kartida aad u yeelatay inaad meel aad leedahay aad ka soo dhex muuqato intaasoo dad inay kugu xidhan yihiin waxaad gaaray tahay maasha Allah aad iyo aad baan kuuga hambalyeynaya walaalo hore uga sii soco dadku markay ku arkaan kole waxay ku arkaan adoo wartabinaya kole waxay ku arkaan adoo qiso dadku ay ka dhageysanayaan qaybta abwaaniyada ugu tuuray waxaanu hibe ilaa xilmad ayaad isku mar baad heshay mise mar dhaxad abwaanimadu timi horta Faadimo markii ay dugsiga oo saddex dhiganayay waxaan iska ahaa inta badan dadka masraxa iskuulka daabuurka ka hadla ereyada qaar isku geeya ama haday suugaan waxbarasho noqoto ama kuwa ruwaayad la metelayaba ha noqoto dadkii waxaan ka mid ahaan jiray suugaanta iyo ereyada qori jiray marka anigoo yar waan iska jeclaa waliba waxaan aad u xasuustaa nin baan suugaantiisa xoog u dhageysan jiro markii dambe xataa luuqdiisii maan raacay oo luuqdaasi oo ahayd tabta caras ciise ayaanta waa margade baryahan maadeys ma gelin haddii kale waxaan lahaa tabtaas oo kale itana adigu markii dambe ereybii dhiiba ilaa iyo aakhirkii maalin dhexdeera waxaan filayaa adu 2000 iyo way jireen dee 2020 ilaa 2019 heeso ereyaan sameeyo suugaano la qaadi laakiin markii aan u bareeray inaan intaan soo fadhiisto aan idhaahdo horta afartan waanigaas ay sikay mushkilad kalena iyo ma jirin oo aan wala baqan jiray waxay ahayd waxaan isiri inka masaajidka markaa tagto iyadoo 30 juz laga akhrinayo adigoo alxamdiyo qul walla khaliya sita hadda la ag fadhiisato intaada yar bay oran doonaan laga qarin doono marka horta waana ka baqi jiray mid kale way jirto wax dadka inta badan Soomaaliyeed hadda ugu fiirsato laba erey haduu qofku isu geeyo inta badan waa laga yaaba ma waxana suugaan qaar baa ku jabinay marka anoo isiri wareede shaqadan kale umada u haysaa de halkan kale umada wacyi gelin iyo idinkan xoga kale u gudbiyay iska daa laakiin waan iska jeclaystay aniga laftarkaygu barbaan waxa qorqori jiray mala sidaas animka laba hibala wad iska daysi waayahay balmaasada ugu horeysay aynu ku furanayno
haddaynu gacanta gelino bal wixii xogga ee dambe dambeynu ka wadaagi doonaa waa kuwa bilaabaya waay iyadoo maansadani iyadoo heesa waxaan u dhiibay inanta la yidhaahdo hibaaq xurm waay laxankana waxaan filayaa iyo muusigaba waxaa la digaala yar u qaaday iyadoo heesay ku baxday laakiin iyadoo suugaana ku akrinaya waay waa waxay ku jirtaa ereyadaan ugu jecelahay markaan eego qaabka aan uga waramayay iyo aragtida nolosha waay waxay leedahay barashiyo wanaag waxa buuxin kara ruuxa kula buko barbarkaaga jira waay baaxad sooruhiyo basanbaas adduunka u babac dhigee kula baanta garo waay ha iska burin qofkii nafta kuu baxshee beerkii iyo wadnaha kugu beeray adi waay bugagii sirtiyo buuggii riyada ha u baahin nacab balaraadshe abid been ma sheegaya bidixdiiyo midigta isu baahan iyo barquraynu nahay waay ha iska burin qofkii nafta kuu baxshee beerkii iyo wadnaha kugu beeray adi waay waka maasha allah waa maase aada iyo aada u kooban oo haddana xigmad badan leh bal marka ay labada xirfadood qofka isku wado haddana dee social mediahii uu kasoo gudbinayo labada xirfadoodna ay yihiin midna xagga wariyanimada midna ay tahay xaggan abwaanimada iyo halabuurnimada bal dadka maxaa adiga feedback kaaga soo noqday yacni horta niyow maxaa saameyn kugu leh horta dadka qaar qolyaha qofba wax buu jeclaanayaa waay tusaale ahaan qof baa wuxuu doonayaa horta dhinaca marka la eego meheradaha ganacsiga qofkani waxna uu ku xaysiinayaa fareerina uu kugu darayaa codkana waa saafiyo waa cod la maqli karo halkaa waa gow baa lagaga soo siinaya dhinacan kalena feedbackaygaga yimi horta tan iyo intaan bilaabay inaan qisooyinka dadka ka waramo qisaba qisaday ka xanuunka kulushahay baa layla wadaagaa wallaahi qisooyinka qaar anaa dib u ilmeeya isma yidhaahdo malaha dhulka soomaalida noocan oo kale ayaaba ka dhici karta malaha gabadh baa noocan samayn karta malaha nin baa waxaan samayn kara macquul maaha ilaa iyo heer dadkii ay eeg maaha hebel bay ku dhacday dadkii ay ku dhacday alla kulma aragteenba aan is aragnay dhowr qisoo kala duwan baan arkay mid baan si kooban kugu soo qaadaya qisadan waxay ka dhacday wiil baa magaalada hargeysa u deganaa dhalinyarada dee kubadda ciyaartuu ahaa hargeysuu ka tegey burcuu tegey kubad bay kusoo ciyaareen inan bay iska soo barteen si wanaagsan bay muddo bila asxaab u haayeen asxaabnimadii wiilku waa ku istaagi waaye wuxuu yihi may inantuna dhalinyarada markaa kacay ee weliba quruxna lasoo kacay inankana dee quruxi kama marnay labaduba quruxu saaxiib bay ahay waa laisla jaan qaado bil kadib wuxuu ka dalbaday inay dee haasaawo wadaag noqdaan waa la haasaaway si wanaagsan baa loo sheekaystay sidii loo wada xidhiidhayaba maalin maalmaha kamid a waxaa dhacday inantu inta badan marka uu garoonka aadayo video call bu kula hadli jiray ama markuu haafku dhaco hadda ciyaartii haafkaa dhacay waxaan sameynayaa waan dee nasanaynaa adigu xaaladda qofka step by step bay ula socotaa isaguna ula socodsiiyaa marka xidhiirka laga hadlayana qofku haddaanu xaaladaada hadduu ka hore kaa maqan yahay ka dambe ku imaan ka dambe hadduu kaa maqan yahay habeenkii ku imaan waxaa idiga dhexeeya waa been aragti ahaan dee dadku way kala maqnaan karaan laakiin iska warhaanshuhu hal marna ilaahay fariin yarna ha ka yeele qofka aan marna kaa soo wardoonin aragti ahaan marka uu mashquuli karaa qofka laakiin 24 saacadood oo isku soo waxaan aaminsanahay qofka in iska fasaxi karaba dadka aaminsan bana faadimo 24 saacadood maana iyadoo aniga ahayn qofka aan yani haddaan tusaalaan xidhiidh leeyahay baa tahay oo dhacdaba qofkaas inuu iga maqnaado 2 cisho 3 cisho caadi normal bay la taani yani caadiya dunida adigaan kuu dhiibayaa 24 saacadood oo isku soo wareegtay dama qofka waqti sidee maya 24 saacadood oo isku soo wareegtay mobilkaaga ma ka wada maarantay deenu ma mobilka waan jecelahay waxaad ii sheegtaa oo kale 24 saacadood isku soo wareegtay mobil isku mid maaha way 24 saacadood isku soo wareegtay miyad minute kamida ama 2 saac ama hal 5 minute oo kamida mobilkaaga aad siinaysaa TikTok baad aadi kartaa
youtube baad aadi kartaa meelo soo ma aadis waqtiga kama hadlayo telefoonkaygu maaha qof telefoonkaygu hawl male Laakiin- ana iskale oo laakiin- waxaan anigu laakiin leeyahay qofku waa laakiin taladiisa qofkan yani xidhiir hadduu qof naga dhexeeyo na dhex maraba qofkan anigu waxaan jecelahay in waqti la siiyo waa jacaylkan kugu hawlihiisa xawdideysane iska waan bato. iskaranaynaa jacaylkan xididadaa kula gaadhin kaasaan kugu kalifin inaad qof saacado badan sugtay qisadaa kugu dhameeyo waayahay dhakhtar baanad aadinoo faleembooyin baa lagugu soo rakibine weli jacayl buu kugu dhacay horta aniga ha niyo aragti ahaan dee been kama sheegi karo waayo maana ibni aadan ahayn qofaan nolosha jacayl ku dhicin maba jirtaba been intuu lagama sheego tusaale ahaan oo kale jacaylku intuu ku hayay horta ma muddo badan ma wax yar ma may wallaahi horta muddo badan ma odhan karo been baa ka sheegaya waa laakiin ibni aadanku nolosha markaad xiriirka samayso dadku waa kuwo ku fahma noloshu waa halka ugu sareysa wax weeyaan qofkaad xiriir dad badan waxaa jira nolosheena waxay usoo galaan inagu weliba dadka saameynta dee dadka la hadlee dadka la garanaya waxay ku mushkilad xun yihiin dadka qaarnayna ma aaminayaan maadaa bilaa xidhiidha mise maaday qof kaa maqan yihin laguma aaminayo aad iyo aad inaad wada baarasitimol guriga kugu yaalaan ha lama ogo baa loo haystaayo haddaad kiniinkan haddaad iyada kiniin ka dhigato laba baarasitimolaa guriga ku yaala lagu odhanaya waay sida marka horta ma badnayn qisadaa kuu dhamaynaya inankii inantii xaaladoodu iska warhayeen xilli walba waa laysla jaan qaadi jiray galab galbaha ka mid a oo wax dhacday inantii wuxuu ku uri garoon baa tegayaa haye bay isku ogaayeen teleefonkii haftankii dee ciyaartu marka dhacdo way soo wici jiray way weyday waqtiyadii ay u baratay oo dhan bay weyday dabeetana ilaa iyo saacaddu kasoo gaadhaysay 7 oo xoogaa bay inankii ay saaxiibadayen ba la hadashay waaba xidhan yihiba teleefonkiisi masito waxay inan kale garaacday inankii kale la hadashay suu u sheegay hebel maanta uu garoonka ku jabay ee dhakhtarkuu yaallaa koomuu ku jira waa laba magaalana waa la kala joogaa kala fogaanshaha jacaylku waxyaabaha ku xunye mataqaana waa mushkilad meedhan waay inantii iyo inankii oo dee labad magaalo kala degnaa inantii waa taa dee naxday jacaylkuna iyadoo xoog ugu soo badanaya laakiin wiilku jacayl waa jiraa inantii dumarka marka hore daacadnimada ku badan waan garanaya in qodobka xeerka dumarlaannimadu waa runta ma been baa dumarlaannimadu inay kugu kacayso waa ku ogahay waay qisadu yaanay baangaha kuu qaadan ha kuu dhameeyo waay wax dhacday inantii markii xaaladii ogaatay werwer baa qabtay inantu waa ardayad dhaqaale meel kasoo gala ma haysato waa qofkaa dee waxbarashada un ku mashquulsan inan ay dumaashi yihiin waxaa jira sheekada intaana kugu dhaafin inantu 2 hablood baa la saaxiibtay 2 hablood mid ka mid a waxay ku nooshahay oo iyadoo ay tahay qof nolol sare ah waay inanta kalena waa iska nolol caadiya oo labadooda nolol caadiya ku wada nool intan inankan ay is yaqaaneen bay tustay inankan inay wada sheekaystaan inantanna inankuta waa quruxda waa kaale arag saaxiibtinimada xeerin maysaan idinku waa ka baxaysaan dumarka intaasay ku xun yihiin waa run soo maha inantu inankii bay gib iyo rax ku tahay waay way wacdaa isagu laakiin wuxuu la hadlaa dimaashinimo iska waran taasoo duucaadi uga qaada waay sheekada dhakhtarkii aan dhageeyo markii inankii dhakhtarkii la geeyey inantii werwer baa qabtay waxay doontay meel allaale iyo meel ay inankii u marto inantii waxay doontay meel allaale iyo meelsha ugu fudud ee wiilka ay usoo mari karto waay deetana waxaa dhacday inanay dumaashiyiin bay u tagtay iyo inan kale ay saaxiibiyin way soo raaceen warniyo aniga meel uun ii mariyo inaan inankii soo arko ayaan rabaa waay waa laysku afkartay waay inantii dumaashiday soo anba bixisa magaalada hargeysa qofka ma taqaano keliya waxay garanaysaa dhakhtarka uu yaallo waay cid kale olay gatay isi soo miidaamisa bartii gaarigii laga soo saaray magaalada inankii xafiiska jooga ku tiri walaa dhakhtar hebeli geeye ma garanayo magaaladana waay cid kale ma aqaan inan ka miday nabadaa kaxeeyey waay abaal badan baan u hayaabay inantu igu tiri inankaas waay wuxuu geeyey dhakhtarkii dhakhtarka markaa inankii waxa dul fadhiyaa kooma kuma jira markaa waa caadi waxaa dul fadhiyaa aabihii iyo 2 inan ay walaaliyeen lawa naxay haye ana ismooday daatana waxaa dhacday inantii
way gabatay inankii baa markaa dareemay inay inantii naxday inankii inanta waday ayaa arkay dee inay shoog ku jirto oo muxuu ahaa hambireega ii galan inantii waa wallahi waa naxay deetana inankii baa ka horreeyo markaasuu ku yiri inankii ka warramo siduu yahay ma fiican yaho haa uu wanaagsan alxamdulilah inankaanu saaxiibanahay inantani la socotaana waa walaashay deetana dadka waaweyne saaxiibkay waxaas torta way ixtiraamayaan deetana odaygii waa kacay inankii kalena adigu banaanka u yeerbax inankii kalena qof bukaanu caawinaya waxay tiri waaba farxadayda waan u dhawaaday madaxaan taabtaabtay iska waran sidee tahay la hadlaa xataa markii ugu horeysay arkeenba waa markii koowaad indhahaas dee markii koowaad indhahaas saareen maaha oo markan dee ilaa waa kuwa burcaas ku arkay oo markan dee dhakhtarka ku jirto xaaladeedu waa sidee uu ku leeyahay way ku leedahay deetana madaxa taataabato markaas waxay tiri marka intan yaraan naxariis baan dareemaya habi baan ahay deetana waxaan u sheego waxaa ku tiri niyow magaalada cidaan ka garanaya ma jirto adiga dartaabaan halkaa wami xaafadiina waan ka baqaya qof aan la hadli karaa ma jiro dee maxaan sameeyaa wuxuu ku yidhi inankii buu ku yidhi walaala waxaad samaysaa inan baan la hadlayaa inta u imanayso iyadaa xaafad geenaysa caawa iila sii joog walaalo xagga hoose u daadego ilana soo hadal sidii baa la yeelay inan baa u timi way kaxaysay habeenkii gurigoodii bay geysay cuntada uma soo dhadhamin ilaa iyo intay burco ka timi aragtida markaa ay soo aragtayna werwer kalaa sii haya jacaylku inanta xididada wuu dhaafo dhiigga waa waraabinaya waxa u dawaa waa aragtidaa hore mar kale talo mau tagtaa islaam waxay tirisay habeenkii horta dhar waxay seetaa intaa ay xidhan tahay mobeelkeeda iyo jaajarkeeda miyo wax kalena ma siito adduunna warkiisa daa inanti waa yaabtay waxa dhacday waktigan dee siduu u adeeg yahay inuu u dhaqaaqay waktiguna dheeraabay qaatay saacadda eegtay waxay doonaysaa inay subaxa u tagto deetana subaxa booqashada waa ka mamnuuc 8 bay soo kacdo markaasa leeyi may looma tegayo casarkuuma ugu dhow booqasho casarkii ha sugto 3 gaadhi way soo raaceen oo supermarketkii soo mareen oo inankii maalintii soo kaxeeyeen ayaa soo raaceen wuxuu way soo wada raaceen loo yimi inanka marka waxaa la jooga hablahoodii iyo labadii inan iyo hooyadii labada inan uu sheegay xukuniyo inantii maanta ii timi waa inaan la sheegaysto burca iga timi waa jacaylkayga waxa dhacday hooyadii iyo qoyska fadhiyo uu sheego inantan halkaas iga timo waa jacaylkayga markiiba waxay tiri waxaan ku laab qaboobay inanka hooyadii baa laabtay gashtay walaalihii bay soo dhaweeyey waxaa laii muujiyey kalgacayl laakiin hadday si yaroo kale u eegi lahayn way u dhammaan lahayd albaabkaa laga soo ama wuxuu sheegayba wabuu sheegay balataasaa ugu daran adigu dadku waa kaa qalbi adag horta dhegeyso anigu sideebaa loo isu arki karaan inaan aan wada sheekaysano hooyadii iska daa walaalihiita xataa waa qajilaad weeyaan waxa ku hayaan weyneyna dhegeyso walaax kasta hadii ku hay wax xishoodka ka weyn maya xishoodku waa awood laakiin waxaan dareenada kugu lamaanayna way kaa anu dadku waxay soranayaan bay walaal jacayl baan kugu dhicina jacayl dhakhtar lagu geeyeyso markaasaan anu kala hadlayna arrinta waxa dhacday inantii waxay tiri waa la soo dhaweeyay deetana qoyskii waxay ugu yiraahdeen hablihii iyo inantii mar haddaad isaga dartii magaalada u timi annagana raac nala joog muddada yaraad joogtid gurigeyga kaalay si aad isagana u aragtay uga warhaysay waaba tabtaan doonayo meelaan rabe roob maygu hela waa farxay dimaashadii baan la hadlo dee raac bay ugu tiri ayaamaha la soo joogo oo gurigooga inan tahay dimaashigiine walaalkeed qabo anaa xaafadan iyo xaggana kaa dabaraya odhanaya magaalada inanaan wax suunahay bay u raacday oo joogtaa adigu inantii 18 habeen 18 cisho bay gurigii reerkaa joogtay iyadaa 3 waqti cuntada u karisa
gurigooga karinaysa isaga de isaga u karinaysa cuntada ku isaga de xaafadda hala cunta laakiin de isaga waa dharkiisa iyadaa maydhaysa ha cidiyaha marka dhakhtarka la tago dee waa in duugitaan iyo daweeye loo yar marmariyo moogta lugtan jaban iyadaa intiiba marinaysa waxay ku leedahay 18 cisho waxaan dareemayaa inaan ahay boqorad reereed waxay reerku diyaar u yihiin inay soo guursadaan oo inankooda dee maasha allah haye waa laysoo ambabixiyey si kalgacayl loo wanaagsan waa laysoo ambabixiyey waan iskaga imi magaaladeydii baan imi labadayaduna ereyada iyo kalgacaylku iyo haasaawuhu si macaan bay noogu socda deetana waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a baa inan aan maadarno guriga nala joogay baa xanuustay deetana markii uu saa u xanuustay baa telefoonkaygaan sitay dhulka ku dhaca deetana gebigiisba wuxuu noqday waxaan dhaqaaqayn guuxiyo garirtoona laga waaya meelaan kala hadla male xaafadayda waan ka baqanayaa qof aan odhan karo telefoon ii dhiib ma jirto inantii aan saaxiibad ahayn baa ii timi saa ku uri niyow telefonkiina wuu iga jabay markaa labadii hablood ma garanaysaa labadii hablood mid ka mid a inantay saaxiibada yihiin ta kale inay ku warwareegaysa maaha ayaa u timi se ku tiri niyow telefoonkiina wuu iga jabay hebelna meelaa kala hadla mahayo inanaan maadeernahay baa dee dhakhtarkaa yaallo belintu xaaladiisu dhinac noqonayso deetana waay inankiibaa geeriyooday u dhintay ha inankii waxaa geeriyooday dee ilmaadeerka ahaayeen deetana inan kaloo ilmaadeeriyina u yimi inanta adoo xalka geeridii iyo hawshii waa lagu mashquulay inantii ay saaxiibada ahayn waxay u sheegtay inantii kaloo iyaduna inankii meela hadashay armaadaa warbahayaba inantii inan baa dibadda uga yimi ay ilmaadeer yihiin inankaasay ku mashquulsanta isaga waqti la qaadata habeen kasta hudheel baa laga casheeya saaxiibkay dee diradiraalaha iyo nacabka warkiisii xafid sidiiba ku qaata cadhaad jiqahaysa waa naf waxna jecel dee laakiin lasoo diray deetana 18 cisho kadib bay gurigii waxay tagtay inantii ay dimaashiga hayeen dimaashideed bay u tagtay lambarkeedii bay kala hadashay way u sheegtay oo xaaladii way la hadasho maslax baan siro may adigu baryo badan kadib wiga aqbalay waxay tiri xaafadayda qof aan idhaahdo telefoon ii dhiibo iga aqbalayaa ma jirto qof moobeelkiisa aan is idhaahdo ka waxna ma ka baqaya waxaan soranaya armu niyo kusoo celiyaa deetana waxaa dhacday islaam baa noo timi suuqa ka ganacsata deetana waxay tiri waxaan u baahanay inan iyo shaqaysa oo caruurtaa yarar qadada igu kariso oo intaan suuqa ku maqanahay iisii haysa deetana waxay tiri niyo waan isla hadla niyo maad halkan mobilka iibsatid isagiina intaad magaaladii dib ugu noqoto soo qancisid inaan waxba jirin way daashaba wallahi miskiinad jabibo waa ka dambeeyaha ka degdeg cadaabi way dambeysaa islaantii bay aqbashay way u shaqaysay lacag wanaagsan bay ka heshay mobil bay iibsatay hadiyad bay soo diyaarisay magaaladii ay ka soo anbabaxday waxay la soo hadashay inan ay walaala yihiin inanka kuturniyo caawo waxaan magaaladan imanayaa waxaan u baahanahay inaad inanka walaala ama dibadda igu soo saarto ama guriga si qarsoodi igu soo geliso waayo waan isku dhacsannahay adigu magaalada ma iman karo maalmaha buu yaro xanuunsanayo markay xanuunkii u sheegtay waan sii warwaray bay tiri alla muu xanuustaa warwar baabay sii qaaday gurigii qolkii gasho waan waxay tiri habeenkii oo dhan maslaxay wax kasta ku eri u cadeey dee waa hinaasan yahay kelmaduu ku yidhi ma taqaanaa wuxuu ku yidhi saaxiibada oo dadka kuugu dhow waa dee warkan ii sheegtee oo afkaa wax ku kala goosataan iyaan aaminayaa kale deetana adigu inantii dejisay hadiyadihii siisay iska soo noqotay magaaladii burcahay ku noqotay mar kale haasaawuhu macaanaa haddana inantii qoyskooda ku bartee inantumaan qoyskoodu baranay inankii qoyskoodu dee wada barteen asxaabta xantoodii kisgaadhayo oo mararka qaar oo marka la yidhaahdo niyow jacaylka iyo xidhiirku waxay ku fiican yihiin qarsoodiga waayo haddii kale hadhow hebel aad kala hadheen waa yaro xanuun
dadkaabaanan xanuunka ugu badan dadka ka qaadaysa Eestadi. waxaa lagu odhanaya faadimo halkan waxaa maraya gaskaagiihe Waa caadi oo laakiin. dhimasho laakiin Laakiin waa caadi de. haye eeg haddaad aada isugu faani jirteen Ha, horta oo may. aad Horta wax walba barafidka ku wanaagsan laakiin wax xanuun dala ha waa ma wallahi anigu qof aan shukaansan jiray haddaan arko. ay adiga qalbigaaga geersh buu dib baahay ilama. qalbigaaga geersh buu baahay dadka qalbiyada leh marka hadlayna Inamada ay ku dirin. Inamada ay ku dirin which believe. waay dadna waxa dhacday sidii baa la isula jaan qaaday inantii kale ay saaxiibada ahaayeen dadaal waxay ugu jirtaa inay wiilkan la kala wareegto Waa. daqiiqad bay ula hadlaysaa isagoo dimaashinimo ula hadlaya laakiin waa qofkii warka usoo gudbiyo dadka kale uu ka xigsanaya Waa. si dhow buu ula saaxiib noqonaya inanka hawl baa u socota magaalada muqdisho ayuu doonaya inuu tago deetana iyadiina waxaa ku tiri inanta kalena waa in reerkoodu ladan yaho dee dibadda loo joogay waxay tiri dee waa fursadaad niyo ninka isku jeclaysiin kartide raac niyana muqdishoan hawl kale ayay ku tiri Asraan. waa la isku sii dulug darsan Waa. magaalada burco markaa uu sii maray saaxiibadii hargeysa u yimi muqdisho u duula Waa. statiska waxay soo dhigatay Ha. markii ay dee uu xinaabay ogeyd moogta Ha, okay. inantii waxay soo dhigatay Ku jifta. iyagoo isku kursiya Ha. deetana garabka saa garabka ugu haysa Ha, okay. deetana ay ugu soo qortay may husband bay kusoo qortay ninkaygii miskiimadii yarayd waa la kerkeriyey la hadasha hebelow maxaa heblaayo kuu kaabay de waa caadiya maxaa dhaco waan isku sii lug darsanuuna may saasay kugu soo qoratay dee waxay doontaa soo qorta adiga yaanu meynaan is joogin iska ilo haye waxay tiri waan qarsanayaa hinaasahayga iyo cadhadayda Ma qarsay. dee waan iska sii Allah qarsanaya ina qarsato mehe. kowdhe waan ku ogho baas Mayme. gaas iyo kabriid baad raadinaysaa Allah waa xanuune. aan kuu dhameeyo deetana waxa dhacday soo noqoy la iska saaxiib noqoy jacaylkii la wada qaad inantan kalena dadaal bashay waxa dhacday marka sheekadu saa u socotay buu magaaladii buu ku tegay deetana magaalada intaan uga iman baa inanta qof familigooda oo inay eedadeed ahayd baan filaya baa ku odhanaysaa dibaddaan ka imanaya maxaan hadiyad kaaga soo dhiga maxaa doonaysaa inaan hadiyad kaaga soo dhigo waxay odhanaysaa wax allaaliya waxaad ila jeclaatay mid iga soo dhigaysaa haa okay waxaad hadiyad iga soo dhigtaa combyutar iyo mobile iphone waana golaga tiri waa loo soo qaaday aabaheedoo aanay adduun weydiisan ba adduun weydiisatay walaalkeedna lacag weydiisatay isku dartay dhar qurux badan hadiyado kaale araga intiiba soo iibisay wiilkii magaaladii burcay ugu yeedhay ii kaale bay ku tiri kolleyba maadaama dee qorshahaagu yahay bixitaan ii kaale hadiyadii iyo alaabadiina Ku wada siisa wixiiba. alaabadii lagu wareejiyey kowdhe Waa. jabka dambeeyaa darane alaabtii inankii la siiyey markii ay kala tageen ay sidii uu ku noqday baa oo qofkaa wax jecele horta mushkilad kalena way jirtaayo faadima inaad aragtay in kala garan maaye qofku markuu wax jecel yahay wuxuu soranaya iminkaa lagaa qabanaya Telefoonka. 20 jeer dee telefoonka Yani qofka marka ku celceli sidoo kale. mar kastood ku celcelisa jacaylkuna dhinacan kaga biiraya Ma uu ku bataaba. jacaylku kugu badanaya Qofka ka jeceshay marka yani waa warweerka. waad Warweerka ku kordhiya qofka. waad sii jeclaanaysaa Laakiin waa daqiiqadaha soo muddo in xawliye ku ila yiri. xawli ku jira Ah, waran. waxa laga yaabaa adoo 30 jeer garaacay inay adiga Inay kala weynaat ha wakaas. Inay laba jeer kula noqoto. qoraaladuna waa tan dhaaf waxay tiri telefoonku sidii uu ku xunaa inay saaxiibiyeen baan la hadlay wuxuu igu yiri niyow telefoonkii baa ka jabay Yada isagii. inankii Waa. deetana hayo way wada hadleen adigu markii dambe waxay rumaysatay inay walaashii la hadashay way u sheegtay way rumaysatay haye bay tiri isagii baa markaa la soo hadlo telefoonka iga jabo haddaba intan telefoonka ka dhaxaysa ayaa mushkilada dhacday ninkii hadiyadihii dhammaaya la siiyey Haw. dharkii oo khaliya mooyaane iphonekii iyo wixii kale iyo wixii la socday saaxiibadii fartaha ka soo saara Tii kale. Ayada saaxiibadeed. ah Oo xiriir baa dhex maray. ha soo duubto Alla ina ragoji male. saaxiibadaha soo duubto staatkaas soo dhigato deetana Way soo dilay. Kowata ka soo siisay.
ha ku soo qorato adduunka hebelo adaan kuu jecla inta hadiyadda adii keentira abaal baa kaaga haya. alla wadna xanuun weynaa. soo dhawo hayga degdegen ta dambaysaa ka darane. inankii markii uu isku yaraa arkayey macnaha qabbaa galay ibni aadamku oo markanaa marka la jeclaado dil bilaadam waa markanaa kuleeyay hadduu qofku naxariis kaa helo daryeel joogtaa kaa helo wuxuu u haystaa dadkao dhan inay naxariis siin karaan, dadkao dhan inay wada jeclaan karaan. ibni aadamku haddaad quruxdaada aaminto ood istiraahdo waxa dunida joogaba magnad baad u tahay oo waad soo jiidanaysa waa mushkilad. deetana waxa dhacday inankii markii inantii uu ku yidhi dee mobailkaaga jawaay maalintii dambena wuxuu doonaya mid kale inay keento miya dee maye dee hay dee wuu sheego mobailkaaga jaban waa soo samaysanaya buu ku yidhi. mobailkii baa lasoo samaystay deetana lambarkiisii meel kasta uu ka baloogaray. waay deetana waxaa intaan la baloogaray markii uu baloogareeyey meel kasta kasoo xidhay baa lambar kale oo uu leeyahay bay soo heshay. muddo markay kadeednay lambarkii bay la hadashay, whatsappkii aragtay. whatsappka cidda profileka saaran ma taqaan naagtii baa saaran inantii baa saaran. waa xanuun wallah. dabeetana waxa dhacday markii profileka unbay inantii la hadasho markaasuu ku tiri hebelo maxaa dhacay qofkan profileka ku saarana waayo mana heblaayahay sudaha waa heblaaye oo wada hadalnaaye wax samaysaa anigu ma doonayo heblaaye qof aanan isku leefa lahayn isku tallaabo ahayn waxaan doonayaa inaan ka heli karin iga raalina. oo soniga alaabtan la gusiitan alaabtan laba bay haysan adigu iyadaan heblaaye wax walba ka helayaa iska raaliha oof عليك inantii halkii qalbigii jab. dhakhtar kasta waa la geeyaa waxa ma qabto ka uma inay ka waxaan istaa qalad bay horta dhageyso qalbiga ku tala galay iyada ma wallahi ma qalbiga wani tabir had marka aragtay saaxiibadeedu ka haystay horta Faadimo anigu wali ku sheegay dhakhtarka geerishka tacaalka lagu geeyay bukaanada yaala ma yani eeg waxa kala dhawan aamsanahay laakiin ninku markuu saaxiibada ama qof ku dhow ka bilaabo wad nacaysa jacayl ma xataa nacayb xataa qaadaysa hay nacayb u qaadaysa laakiin wali qalbiga waa rumo kabanaya laakiin qalbiga xeer baad jira caadiya waxa dhacday sidii markii ku yiri inantii way xanuunsatay koomay gashay adigu dhakhtar baa la dhigay way yara ladnaatay dhakhtarkii wuxuu ku yiri cilaaj geeya gabadha ha inta badan malaha dadkan cilaashada ku jira qaar badan baa jacayl way dhici kartaa deetana adigu inantii muddo iska ladnaatay iyada magaaladeedii iska joogto oo qalbiguna buko oo niyadiina ilowshaha ayuunbaa maalin maalmaha ka mid ah labadana dee hawshoodii waa iska mataa qalad buu sameeyey xilliye waxaa jira mamnuuc ummadda lasoo tegi karana qalad buu sameeyey ninkaas halis buu gala halis caafimaad buu gala deetana inankii ay saaxiibadahay magaaladii buu markaa tegay Burco inankii ay saaxiibadahayn baa inantii la hadlay heblaayo hebel waa sakaraad taadinto ma way dhakhtarku yaala way soo carartay kabalaan bay dhakhtarkii ku timi ama hadana lacag kale laga rabaa yaari ma kale warkuba waa kaase warkuba waa la soo aan gartay deetana waxa dhacday dhakhtarkii markay timi dee dhakhaatiirta lama oran karo gabadhaanu qabin buu tagay maskax bay keento dimaashida buu yaadho waxa tiri inay ku hooyadii baat ani marka way ka yara weyneed inta xoogaa in badan aniguna waxaan ahay gabadhiisii dhakhtaradii wada tagto markaas ku tiri niyo xilligii qaldanaa aan la soo iman jirin ma ninka u tagay xaaladiis waa taa maxaad ka doonta waxa ku leedahay wajigu ii furan mad waaranta adigu xilliyada mid iimaansatid xilliga kale deetana adigu xaaladiisii baa la tacaalay lacag baanu soo qaadnay $700 waanu daweynay inankii la soo qaado adigu ladnaa mahadsanid iyo maxbaadii qabatay toona tasooki harama ma jirto sidii waxa tir sidii baan faraha ka qaaday anoo sidii ku ilowbay oo sidii u buka baan numberkiisa iska baloogareeyay faraha ka qaaday wuxuu igala soo hadlay wadamada dibadda number baa dibadda igala soo misaal walaal iska waran fiican waa hebel sheekatu hebel ka ma garanay waa hebel amsoo hebel ka ma garanay sir waa hebel ha walaal iska waran fiican to seeto ka waran
halkaasaan joogaa xaaladeedu niyo dhib baa haysta waxaana doonaya inaad cafido haye waxay dib u cunaan dadka dhirka nafsi baa adeegay waxaad nabada hurudiyo nabar lama filaan iyo naxdin daris ma noqotay inantaas waxaan xasuustay ma taqaanaa inantaa markaa aan arkay dee siday ay ahayd dee waxaan xasuustay heestan sahre axmed cabdilaahi sahre lees qaado ereyadeena uu leeyahay ninka la dhaa guray dool inaan ku jeclaad ogaatay kolkaasaad igu ciyaartay kal iyo laabtaan ku raacshay qalbigii aan kugu casuumay kalsoonidii baad waxyeeshay ku barta kugumaan qasaarin waxaanse ka qooma mooday sidaan kugu keli ahaada xilligu waa kala wareeg waatan dee xilligu waa kala wareege waxaad ku xisaabtantaa kaskiyo maankii ku doortay inuu kaa maarmi karo inantii oo ka maarantay wuu yimi siduu gu yiri xaaladaasaan ku suganahay waan xanuunsanaya markaa ninkii dhiikar baa ku dhuftay dhakhtar buu yaala xaaladiisu marna wuu ku kacayaa marna waa caadi buu noqonaya waa isha bidhaadanka weyaan dabadeetna waxa dhacay wuxuu yihi waxaan doonayaa dhib kalena waa ku dhacay haka degdeg waxaan kaloon doonayaa saaxiibadaa inantaa saaxiibada ahaydeen nin bay iga raacday adduunkaan u jecelahay waxaan doonaya inaad iisoo maslaxda maanaa kusoo maslaxaya anuu xanaaqaya horta marba waxaa ismoodayna aniga xaalada ku jiro iskaamus intaasuu ku kuteena manaysa maslaxaya wallahi wuu khaldanyay weli intaa xanaaqday way toogato anoo boogahaagii hore dhakhtarkoodii alla oo daweynay socdaan wad weliba doonaysaan mar kale saa kuu sameeyo adigu halkiiba ninkii ku baloogtay saaxiibadeed bay qabsato maadaa soo siiyo lambarkan ma garanay meelu ka soo helay weli iyadii naagtii way saaxiib la tahay maya inantii labaadii saaxiibka taa kale lasma tusi karo sababta ninka ka qaadaya maaha maya isagaa raacee nin bay de iyaduna soo ka qayb isagaa doqon ahaye labada dhinacba soo saamayn samayn adigu qisadaasi halkaasay kusoo afmeerantay ninkii maanta gabadhii jeclaydna ma haysto tii kalena waa ka jeclay waa taa deni ka qaaday xanuunna waa kaa u haysta marka inta badan waa iska qisooyin iska dhaco naf waliba naf bay rabtaa nafta kalena naftayduna naf bay rabtaa naftuna naf kale sheeko kalean kaa daba geenaya waxa dhacday niyo inkastoo aanan jeclayn inaan qoysaska iyo dee amuurahooda galo haddana niyo habeenkaa muuqaalkaa aan daawanayay xoog buu ii dareen taabtay qisada markii dambe oo aan dib ka ogaaday baan weliba xoog usii cadhooday waxa dhacday wiil naafa ah oo inta badan dhinaca tiktokta xoog loo wareejinayay waxaa lai sheegay in dhabarka xabadi kaga dhacday in badan uu ku halqabsan jiray cid ma haysto wehelaan baana qofkii gurmadaan raba inan baa u gurmatay oo wadamada carabta uga timi oo guursatay ibni aadanku qofku haddii qofku caawiyo waa inaad waxaad doonaysa ay kaala weynaataa qofka siduu kuu daryeelay qofka biniaadanka hadda ku ixtiraamaya aada iyo aad deetana waxa dhacday inantii ubad baanay isu dhalin aadamigu way hadal badan yihiin oo way xan badan yihiin oo way erey badan yihiin markan qofka ibni aadankaahi aan ilaahay awad siin hadalkooda badan deetana waxa dhacday wiilkii markay dee inantii caawisay taageertay garab qabatay dee intaas lamay weynaanine ubad baan raadinayaa ereyada qaarna dadku waa inaad qalbiga qofka uga tudhaa adiya tiktoktii bay soo furteen oo aada ixtiraamtid qof muuqaalkii baan daawan gabadhiisu ag fadhida waa faraxsan yihin waxaa laygu yiri ciladu adiga maaha ubad ma dhalaysa adigu waa xagga gabadha deg badanaa muddaduu soo qaaday xataa warqaduba waxba kamay soo wareegin markaasuu markiiba wuxuu yihi gabadhayda waxaanu isla afgarana haddaana ciladu aniga ahayn anigu waa faraxsanahay in gabadhayda ciladu ay noqotay waxaan doonayaa in gabar kale aan gursado inantu way dul taagantay anigu damiir ahaan muuqaaladoodan dib u daawadayoo way caawinaysaa way qaadaysaa war inigu ninka dee ragga abaal baa lagu ogaaye waxay sidaas way idamaqday gabadhu markaa kelmad bay odhanaysaa kelmaddan xoogii dareen gelisay wataa
haddaan anigu macnaa cilada moodayeen aniga tahay guurkan ma galay maan guursaday dabadeetana goor allaala iyo gooray adigu aan ka cadhooday garan maayo aad iyo aad wax laga xumaado labadii habeenimo maray ahayd baan qalin iyo warqad isku qaatay laga yaabaa Soomaalidu waa iska hawl meedhane gabadhaasi maalinkay ninkaa guursanaysay inay hadal hayn badan oo aadmiga kala kulanto aad iyo maxaad hebelkan ku fashay ma mid baad weeday kara aad iyo ma qof lagu qabaad weeday ma waa wax soo kala ninkaas anigu ninkaa waxaan u arkayay inuu gafay oo ay ahayd xataa ay gabadhiina uu ceebeeyey oo inantii imika qof kale ma laakiin inta badan waxa la lahaa gabadhu haday dhakhtar la geeyo lagamaba si deerinayba macnaha hadii dhakhtar loo geeyo baa ku soo yiri dhakhtarku hindi oo kale hadii la geliyo oo deme mid kale ma ilaahay buu kala soo ballanay ma ballan gaar u haystay oo ah inuu xataa hadii mid kale u tago u dhawayo aad iyo mid kale ma ballan kale inantan yaa u ballan qaaday inaan wiligeed dhalin horada guur bay soo martay beel lahaaba adigu ninka horta habeenka horta u cadhooday aad iyo dunida waagii baryaba 4 ereyo markaa ka qabtay dunida waagii baryaba warbaayaal dubaa ku diido samaantu dad baanay deeqin wanaagana dulay ka qaada maxaan ku horay daryaal dushayda kugu xambaaray adoo wehel ii dayeysan anigaas waa ninkii lahaa cid ma haysto maxaan weer jilicsan diiday dadka wale waxaan curyaanka maxay ku fashay waxaan naafada maxay ku fashay maxaan weer jilicsan diiday dabkuu aadamuhu shidaayo maxaan ka digoon ka waanshay intaan dulqaad iyo wiljarka idaaleen gacmuhu haddana dabuub kale aanadii oran mahadsanid iyo wuu awoodeeda inuu gabadhiisa u mahad celiyo ugu yaraan xataa ereye yaroo ammaano oo dadka uu yidhaahdo gabadhan laakiin markii ba yidhaahdo gabadh kaan raba rag baan abaaldaran aqoone dibnaha dhahay erey qallooca aniga maankaygu diidiya way saaxiibayaal maxamed qalinle aad iyo aad buu mahadsanyahay barnaamijkani wuxuu noqonayaa barnaamij aniga saameyn weyn ugu yeeshay waayo qisooyinkii oo dhammaay oo la akhriyay oo dhan oo inoo soo tabiyey walaalkeen si fiican baan u dhuuxaan u dhageystay oo dadyowgii waxaad moodayba inaan dhex joogay anigu markii uu ka hadlayay qisooyinka akhriyay marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ku faraxsanahay inaad barnaamijkayga caawa marti ku ahayd aad iyo aad baan ku mahad celinaa tan iyo intaan isugu iman doono barnaamijka xiga waxaan leeyahay sidaas iyo Ramadaan Kariim